xaflad soo dhaweynaa oo lagu daafurayay xisbiga cadaaladda bulshada ee madaxda uu ka yahay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan ayaa lagu qabtay magaalada Gothenburg ee xarunta labaad ee wadanka Sweden. kulankan oo si weyn uga dhex muuqdeen mas'uuliyiin aqoon-yahaniin waxgarad siyaasiyiin ururada haweenka ayaa si weyn loogu amaanay waxqabadkii muddadii uu xilka u ka hayay xarunta Soomaaliya ee Muqdisho. iyadoo waliba dadkii madasha ka hadlay ay ku sifeeyeen in Masar Tarsan uu matali karo masiirka ummadda Soomaaliyeed marka la gaaro xilliga doorashada madaxtinimada 2016. marka walaalayaal qeyrada hadii ila tagto waxaan jeclahay Tarsan saaxiibo dheeraadana waa nahay laakiin wanaagga uu qabtay umadeenu in la isu muujiyo qofka intuu nool yahay in qof lagu muujiyo markuu tan kaliya lama rabo yiraahday inta kalena say ugu dayato qofka wanaagga qabta xaqiiqdii. marka misalkan ku soo gunaanada arintaas waxay tahay adciidda rabbi soo saaranina sacbada kuma qari kar Soomaa Tarsan wax qabadkiisa taas uu dhigma xaqiiqdii in rabaynina heliga waxa cadaaladaan isleeyahay وإذا قلتم فاعدلوا بو إلهي يري حتى دواقيسان دواقينا عدالة هلا غير بو إلهي وحان إسلامي وعدالة إنان سيدان يسيك وين أنكو أبال مرينا ولكن إنه وعد ووفى أحسن وأفاد وأجاد بلن بو قاضي حلكي مركلو ديبي بلن بو قاضي بلن تيسين وأوفي وحن لنا هذا بوجهه يهاي مستحق تهنئة قد حق له إن له تهنئة هدوش الله قد عيه الله هم بريه أنت قد بوحن لي هاي هجانكو وعجيب إلى القرآن كيس وحكولية ولكل قوم هاد ومد والبا حتى حيواناتك إلى وحوسم يا هجان واجي ترسنها وشالله ديراي دعدا حمر وقدر صار واجي ترسنها وشالله ديراي دعدا حمر وقدر صار oo si wanaagsan u hirgalay laguna najaxay wuxuu ahaa dadkii 20 sano ka badan qori caaradiisa ay ku haasteen dhismaha dawladda iyo guryaha shacabka ee gobolka Banaadir ninkii ka soo saaray runta waa waaka qorshihiisa iyo dadaalkiisa ayaa lagu hirgeliyay ninka aad u jeeda halka ayaa qofku wuxuu yiri ma aha qofku isku dhadhajiyo madaxda waa nin geesi ah ma gabba jirin waa dhaliili jiray hataa wasaaradaha ayuu u dhaliili jiray runta waa taa marka waxa in la amaano uu istaahilaa. Det är fantastiskt när man startar ett nytt parti och jag förstår att partiet heter Social rättvisa. Ordet social rättvisa är ett mycket allvarligt ord. Min mormor sa till mig att små sår och fattiga vänner ska man vara försiktig med. Hadu inoo magaalada caasimada labaad inaan ku soo dhaweeyno walaalkeen Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Maxamuud walaalkiisa wuxuu qabtay walaalaheen iyaga nagooniya wada sheegay Maxamed Diina sheegay oo cusub la sheegay Tana Sheekh Quraan sheegay Sheekh Raxmaan baa sheegay wuxuu wanaag qabtay walaalihii ay sheegeen anaga waxa nooga badan kaliya inaan ku dayno inaan u sii duceyno wali wuxuu leeyahay mustaqbal kale wuxuu rabaa ummadiisa inuu u sii qabto gabagabadiina Maxamuud Axmed Tarsan ayaa khudbad dheer oo jeediyay ku soo gabagabeeyay in xilliga la soo gaaray xilligii ummadda Soomaaliyeed ay u codeyn lahaayeen ama ay taageeri lahaayeen xisbiga cadaaladda bulshada si loo helo hoggaan wanaagsan dadka qof wuxuu qabtaa waa jecel waa su'aal daaweyne
iskale waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale kan qabiilka didaale midnimada u doodaale kan qabiilka didaale midnimada u doodaale kan daayicin hawshaale kan lacag ku doorsano wax kastaba u diyaaro kudib jiray dhaxdiisaale maadan qornay waxaan dhahnay marka si aynu nooga dhumin dariiqaan u soconno iyo cudurkaan saxayno aan daaweynayno waa inaan xisbiga cadaaladda bulshada ayaan baraynaa cadaaladda waxay tahay marka waxaan leenahay annagu xisbigaasaan wadanaa umana socono inaan kursi ku korno waxaan rabnaa bulshada inaan ku toosino meeshii bulshadan ka jirantahay ayaana ka abaarayna cadaalad darro bulshada inaan cadaalad kusoo hogaamino inaan bulshadan heshiisiino in ay walaaloobaan midnimadii soo noqoto inay ummadan is aaminaan inay wax isku darsan karaan ummadan wixii isugu jiray in la isugu daro sababtoo ummadan haddaan wax la isugu darin wax islama socon karayso waa in ummadda wax la isugu daraa markan wax isugu keen jireen qaranka markuu naga dhexeeyo walaalana qarankii baa burburay waan kala tag ilaa wax isugu keen jiraan ma aha marka siyaasad iyo wasiirro qabiil loo qaybiyay ma aha xal arrintaas waa qudanta waxa waa bulshada in la heshiisiyo taasana anagu wadna waxaan rabaa marka in aad qof kasta waan ognahay 20 sano la soo dhaafay ummadda waxaa hortaagay dadka bahallada qabiil kasta waxaa ka soo horeeyay dadka bahallada dadka xishoonaya oo karaamada leh oo inay wax qabtaan oo dhan gadaal bay taagneen waxaan leeyahay soo hormara hadda frontiga yimaada dadka wanaagga dadka wanaagga raba waa inay israadsadaan siday dadka xumaanta wata isu raadsadeen dadka wanaagga wada inay waxaadna isugu soo raadsanaysaa xisbiga cadaaladda bulshada isku imaanaysa taasana